lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaayay waana la tashanayay waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula tirtadba talada isiyana raacayay waxaa kaloo iyadana xusuus mudan inaan intaanan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jira gurigayga oo aanaba banaanka u bixin xanuunka igu bilowda aniga marka macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo igu yimid waaye xanuunka marka ilaahay baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegayo layma testi karaynin test layguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhabanaa lagu dhahaa mild condition waxa Ingiriisi lagu dhahaa Soomaali sardhabanaa lagu dhahaa marka sardhabanaa kale u garanaya Soomaaliga waa ballaaran yahay waxa laga yaabaa inkana wax kale u taqaanaya kan sardhabanaa u aqaana saslaajgeed sardhabankaas oo qabanayay waan iska fiicanahay iska soo kacay qabaysanaay salaadeed waa tukana cunto waxa cuni kara cunaay bad laakiin ilaa hadda aan idin la hadlaayo ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunaya laakiin mana isuxmi soo urayaan waxna ma dhadhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsanahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa weeyaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanin hadda waa kaas baabka ay xiran yahay kaliya inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay 3 ila nool midna hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka hadaan aadana way kaligay marka yaan la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinayna dadka muslimka kuma dhacay iyo waxa soo dhamaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaal ku dhacaa waxba ku dhacaa diinta rabta aaminsana waxaana waa cudur qof kastoo ku dhacaya laakiin la isku roonaado oo la isku xiro qufaan laha qufci waa iga yaraaday aad u iga yaraaday qufca marka astaamahayga saasay ahaayeen qofba si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi markay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynayay iyo kuwan shaqeynayn labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carro ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa cirka ka sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto sidaas needin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo aan isbitaal ma geeyna alxamdulillah ma u baahanba gurigaaga joog say ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga hadaad neefta kugu ceshonta bas soo neefna ma ilaahay ma igu ceelin alxamdulillah وفيعنا هذا الباب سوري سنو يا حلي كانوا كلا قدو بدنا إساكنا أجرت هذا المصارنا الحمد لله مركز تاسات واتاس ضدك اسبتال كلاجي وحيابها أقطرن وكدعي وحواي عطلو قف كاغا عم بلاست مركلو عم بكل راعي كرم هنا وقتين كلام أقل وكل راعي haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagugu sameyn kasto had testiga way bayareeyeenba test lagugu sameeyana macnaheedu waxa waaye absolutamente agtaada qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagax ayaa uga sii daraya xanuunkii haye okay hadday noqoto oo tii rabbi kuu timaado isbitaalka lagu geeyo ma raba inaad ka naxay laakiin reality-ga waxa waaye